waayahay waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa American TV hadaba waa barnaamijkii la magac baxay kaftanka siyaasadda iyo alxaraare waxaan maanta noo haysanaa mahadsanid yaasiin saalax abducaale بسم الله الرحمن الرحيم قدر حيسيسن ku bilaabi doonaa waxa weeye shirkadda ama company-ga lagu magacaabo Fera oo ah company Turkiya oo qaabilsan isagu dhinaca qurxinta ilkaha dadka doonaya ilkaha inay soo sameystaan dentalka clinic weyn baa ku yaal halkaas oo runtii farsamo yaqaano iyo dhakhaatiir wanaagsan ay joogaan waxa kale oo lagu sameeyaa qalliinka qurxinta gabdhaha قبلو قروح وجهي هاد قروحها واي عافمات كان باري سيد با كميدا garoonka dayuuradaha iyaga ka soo qaadaya hotelka iyaga ku dejinaya adeeg aad u qurux badan ayaad kala kulmaysaa la xiriir Fera dhinaca timaha dadka doonaya iyaguna inay timo beertaan waxa soo dhan waxa la xiriir karayaan Fera oo qaybo fara badan oo kala duwan ay ka heli doonaan wasaas taas waa taa saliidda jannad iyana timaha dadka ka daas inta badan ku soo celintooda qurxintooda haynta midabkooda iyana kala xiriiraan hadii ay baawoodo loo ogolaado lambarada shaashada ku qoran marka hore calaw saliida waanigi sheegay maalinkii dhaweeyay marka waxaan leeyahay dhammaan customer hawday malaaneen wax badan oo faa'iido badan baa ku jirta oo timaha ونوع تمه وجنات واحد كلا حريرسان واحد كلا حريرسان ميل walba oo de magara sida muxuu ahaa Amazon kale ka dalbanaysa taas ugu fududba marka baashan jannad hawday ma la'aanina waayahay mahadsanid intaasna waa intaa wasaas waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan eegi doonaa bal meeshii iyo wararkii ugu dambeeyay ee wadanku meesha maraya sino xagu maraya xali wadankii waa la isku maraya dhigi muddo xilliyeedkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu haray muddo kooban oo 12 maalmood qiyaastii ah kaliya oo waqti aad u yar wuxuu soo dejiyay barnaamij doorashooyinkii qof iyo cod oo markaasi uu warqad soo saaray maanta warqadaas waxay soo baxday only 15 daqiiqo ka hor warqad kale ama fadhi kale oo mucaaradku ay yeesheen oo ay iyana go'aano soo saareen wax isku maran yahay in 15 hadii la isla dhaafo wadanku aanu madaxweyne ka ahayn xasan sheekh maxamed xaaladiisu waxay tahay inaga oo dhexdhexaad u eegna markaan eegnana inuma muuqato iyo inta caqligaba in doorasho qof iyo cudi ay 12 maalmood ku samaysmayso karba ka dhacay warqadda madaxweynuhu soo saaray wuxuu leeyahay gobolada Puntland iyo Jubaland mooyaan inta kale oo dhan way ka dhacaysaa doorashadu waa doorasho ajaayib marka ma garan karayno in mas'uuliyiintii Soomaalidu ay been idaacadihi iyo telefishinada la soo istaagaan dadkiina ay ka dhigaan dad juhala oo cawaana waxba kala garanayn oo wixii madaxweynuhu afkiisa uu ku yiraahdo qaadanayo iyana macquul maaha mucaarad habaysan oo go'aan cad 15 bisha ay ka midaysan yihiin ma jirto isna ma jiro dhibaato kale marka labadii dhinac markaad eegtid ninna wuxuu la taagan yahay doorashada qof iyo cod haddii aad muran qabtaan waa xallin karnaa inta ka horeysa iminkana waxaanu isu iman doonaa marka ay ka hadho muddo xileedkiisa only 5 days clear ka hadho ayaanu isu iman karnaa wixii Soomaaliya ka jiro dhan baan xalleynaa 5 maalmood raganimo 12 bishan uu dhoofaya oo baxayaba marka madaxweyne xasan sheekh meel wuxuu dhigtay in kursi madaxtinimada uu wali fadhiyo sayaaska joogaba wuxuu meel dhigtay in 2 sano dheeraad horta cidina aan u diideen loogu dari doono meel baa u tala taasna raggii ilaaluushka ka qaatay ee dastuurkan gacanta ku qorqortay markaasi gacanta u taagayay ee hawa ansax weeyaa iyana oo aadan madoob ugu horeeyo wuxuu ka dhigay ama doonay inuu ka dhigo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed wasdaafi markii ugu horeysay baarlamaanku berigii uu lahaa aadan madoobe dastuurka aan dhameeyno walaalayaal konton qof waxaan uga tuurnay anshaxumo konton qof airportka ayaan ku haynaa Muqdisho waxa lahaa wuxuu u dan lahaa oo soo dhameystay in lafta gareen la tuuri doono baa la dhigay oo halka madaxweynaha laga dhigi doono wasaase Xuseen Xasan buu madaxweynuhu wataayo TikTok buu wataayo wixii waxa kama jiraan
بين بنقط نكاس مسوتي وروا دباتوين هي شريف سكين باسنا دحك لا سocda dhinaca kusoo ka soo jeeda oo isla waan ordaya laakiin ninkaas ay isugu biyo shubanaysa isaga ma hal gelis Soomaali hoggaankeedu yaasino marar badan oo ka hadalay koonfur galbeed labada nin bay soo biyo shubatay kaliya Sharif Xasan iyo aadan madoobe in ay madaxweyne noqdaan ma rumaysanaysaa iyadoo aan dacaayadiga ahayn Sharif Xasan iyo aadan madoobe inaanu midna magaciisa qori karin waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan wasku shaqay warqad af Soomaali hadda u dirtid labadooda waa inay turjubaan u yeedhaan warqad waxa nagu turjintay labadooda midna iskuul ma gelin labadooda gelin ba midna ma gelin ragana waxniyo halka ku soo gaaray baydhabo waxa jooga professors waxa jooga aqoon-yahano waxa jooga rag way araga soo shaqeeyay nimankana wada iska mariyay tacliin bartay labada nin dadka reer baydhabo iyo koonfurta galbeed labada aan waxba qorin bay doonayaan ilaahay barkiis maxay kula ku dhacday waa meel cajaa'ib ah dhaqan kale leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah saddex qol la hadasha aqoon-yahano culimada diin iyo juhalo ama jaahiliin saddex qolo ay shacshaba ayaa ma la hadla dadka shacabka culimadu diin iyo wacdi soo kala ma hadlaan aqoon-yahanku soo tacliin iyo kala ma hadlaan meesha dunida la isla marayo iyo siyaasadda iyo dhaqaale jahliguna wuxuu kala hadlaa qofka jaahilku qabiil iyo isdila iyo dadka shacabka markaan eegay saddexda qole la hadasha bawdhiga fiyooyi waxay jecel yihiin ninka jaahilka kaasika wudhiga fiyooyi kuwa marka jaahilku dadkii diinna ma gaarsiiyo aqoonna ma gaarsiiyo jahli buu gaarsiiyaa aqoon daro dib buu celinaya marka dadkii jeclaa ee la hadlayay aqoon daro iyo jahli ay baa ku faafisay dadka waa dhinteen dadka bala la digtay dadkii waa dhibaato caanka haysta labada nin ayaa imka u soo dhudhow waxa waraysi laga qaaday madaxweynihii hore lafta gareen wuxuu leeyahay number 1 weli madaxweynihii waa aniga madaxweyne mashka koonfur galbeed ana madaxweyne ka wuxuu leeyahay warqadii iscasilaada inaan iska casilay madaxweynaha lafta gareen anoo ah koonfur galbeed ما قري فيسبوك حسن الشيخ وقري الشيطان بصوق وكوا مسؤولين تنوكوا لا لا أنا بقول بكلية إما كانوا صوص على عيد باموتا هل كي يجيبان فريسان مدحين الغنية وكنت قالمية والبلبان هي لما ركتن كان مركا قلت مركا ورثة وضيق وحنو شيء هي أمد السماء الله حد ليبا مدحين هدي هذا هان لهيد أنت تمشي السيف فريسيت بحسك عن لهيد مرة بس عرضت دهر عد أي ضدك هاي ديارتك الرعد هي كعرض عيبك وطاي إن مركل هذا الشيء تراهد ونيسو صعدا ولي وصوص صعدا دجال وصودا يحيني بان قلت له ديواتك كان عادي بس إنا لله وإنا إليه راجعون أن ياسينو رئيس الوزراء شيرو يروح القلبيتكم رئيس الوزراء وقت يسمر كل ما هذا شغال كله دونتا هي رئيس الوزراء إنجليزكو دولتي دمبه وكقرب قلي وزير بكنقضي هي وزوب بالعود نو وزير صومالي صون نقضي رئيس الوزراء والدولة دمبه وزير كان نقول مجر إنه عيوبه واركه وحكينا سأقونتي وحبر الشذا رئيس قلبتك يبغى تشهيلو وياه رئيس الوزراء شيء مركي كذا ماتو مددي نو والبا مالك الأشقتك كون شقتك ما يا كوسن قلنا هذا السؤال كوسن الله منيا مدحين الدنيا هذا أما رئيس الوزراء الدنيا هي يجوا وكذا ماتي وكان هذا نصنف كده أما ترى كده رئيس الوزراء الدنيا لا لله ولا لا ما فرسنا يبغى وبروبلم مركا أمد الصومالية وحسوس أورسا ضد عن مستقبل سميسن كرين قان قاري كرين دنتوذا يدي باتوذا نحل كرين والسبب الدولة ترى هذه الشيء الأولى هي وضد ما نقابل وأن بروبلم سكوذا حل كرين ويجوز دلع ما هي دل بكشغيان يدعم يدع أرمها مركا وما كتير أن ماشي الدور عشان كم صوصة تقف وضع معارض سمعنا يا سومالي إن أي جارسيان حلي كمل جارة أما أي وحلقة بان كرانا توتال مجرد هوا كيان
iyagoo saasoo itaal daran ayaa haddana intaa waxay leeyihiin somalilan israa'iil ayaa ictiraaftay soo socota waa inaynu la dagaalanaa israa'iil waa inaynu baabalmandab xayirnaa waaya yaasilow ninka israa'iil raacay ee israa'iil baa ictiraaftay iyo ninka al-shabaab raacay what's the difference waxaa isma dhaxayaan ya waxaa u dhaxayaan xaggan koonfurtu waxaa la falgalay oo ku milan kooxda al-shabaab iska dhex joogta haddaan ku dhaha madaxdan imika ordaysa inta al-shabaab soo noqotay baa badan madaxda laftigeeda Soomaaliya marka madaxda al-shabaab soo noqotay haddana Soomaali u talinaysa haddii ay heli lahaayeen fursad ay Israa'iil la soo shaqeeyaan waa ka tagi lahayd cid batalada ma weydiin marka ummadda Soomaaliyeed waa ummad iyadu isku meeraysanaysa aan kala dhamaaneyn doonayn inay caalamka wax la qaybsato go'aana gaari kareen qodobkaasi waa intaa waxay maanta Soomaali taagan tahay meel halisa meel cidla madaxweyne xasan sheekh wuxuu go'aansaday inaanu u turin dee haddii uu cid u turayo islaamahan jiingadaha uu ka fuqsaday ayuu u turi lahaa siduu mucaarad ugu turaa iyo maamul goboleedyo qodobadaasina dhibaatadaasaa ka taagan puntland iyana buuq siyaasadeed baa ka jira oo madaxweyne maxaa la dhahaa Siciid Cabdullaahi Deni uu kaliya isku furayo waxbaa soo socda waxbaa jira ciidamo xagga walina soo socda ilaaliya imka magaalada Boosaaso waxa la xidhayaa qofkii af carabi ku hadla كيف حالك ده ترى بس كيف حالك يا اخي ده ترى وجرب دب والله حريا ما تخاف على شابدني داعش عربك هذا اللي ولا شقيا عربك داعش تو حكى حبش بدن iyo ormo badan iyo Nigerian aan laba kelmado carabi u dhakreen la ilaaha illa ciyalka la xidhaa waa ciyalkii Soomaaliyeed ee cadan ka soo qaxay oo markii makhaayada ku sheekaysanayaan in yaro carabi afka Soomaaliga aad u aqoon wala xidhaya wala iibsanaya markaa ساسا لو يبسل $5,000 بحية $2,000 بحية هدي كان الدنبقة سيكون شريان واتشيك انت صوصا نضو لا لله دادك هو دمات دادك مركا نبكا سايستا هيا وحين قضب كان دوني ما انت ان البرنامج كينا كغا هذا الله ياسينو وحاوي قضب الله يرا هذا اودي لمود كو اودي سويست لكن اودي ويك منها سوماليدو runta hadii aan isu sheegin weligood wax ma qabsan waxay haye wadadka qura ee taageera ninkooda xun haye ninkooda fiican ma taageeraan waxay taageeraan ninkooda xun bari ba halka waxay yimaaneen aan magaciisa sheegin oo qolooyinka Soomaaliya xildhibaanada waxa ka wasaas marka dumar meelahan jooga ayaa urday waxay yiraahdeen ninka hebelaha ayaa imanaya airportka Minneapolis ayuu ka soo degaya waxa loo diyaariyay oo ninka reer macalin waaxisi ay u diyaariyeen hotel weyn oo uu saxdo bisha uu joogo lacag la sii qadimayo inna lillahi waayahay waxa la isku daray lacag qaarana oo ay u bixiyeen Soorio oo ninka la siinayo ninka caynkaas lacagtaasi 20 ilaa 30 kun oo dollarka Mareykanka ay u dhaxaysay inna lillahi qoladii lacagta ururinayay ayaan la hadlay laba oday haye waxaan ku lacagtan isku dardaraysan waa xagee waa ninka caynkaas ayaa loo habeynaya haye waxa ku yibi ninkaas $5,000 buu qaataa bishii idinkuna ma hordheer yaad ugu daraysan Soorio waxaan weydiiyay markaa wiil reer macalin quwaaxa qolada lacagta ururinaysa oo cisbitaalka ku jira oo baayo hoogay oo talwaay oo dhibaataysan haye dibadda waxaan ku yiri inanka xanuunsan ma siisan ee reerkaasa 30 kun maxaad u sii weydeen waxa dhibaataysan inta nin taay gashan oo shaqaysta oo mushahar qaadanaya siinaysan oo aan wali idin weydiisan aad ka horgeynaysan marka waa dadka qura ee caawiya nin isku filan shaqaari ninka dhibaataysan reerka kuma jiro lama yaqaano ninka reerka u dagaalama marka lug ka go'do baabuurta haduu istaajiyo markuu bogsado lugtiisa goola reerku ilaahay qaado halka hore sii gaari maayay lama qaado waxa la qaadaa ka labada lugood ku socda
hurda gurigiisa gaaraya qurbaha ka yimi ninkaasaa tola walaalaha soo ful gaariga intaasay dhalinyaradu garanayeen halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa odayaal dad badan oo Soomaaliyeed ay garanayaan da'doodu 80 ayay cagacageynaysaa nin 80ka intii aan arkayay aan sidii alla ilaahay wanaag ayuu Soomaali uga shaqeynayaa ma jirto bal ninka maanta ku dar dhinac wanaaga anigu ma garanayo haddii dadka ina daawada ay wanaag u hayaan oo ay adeernimo iyo ilmaadeernimo intay ka tagaan iyo ehelnimo ay eegayaan Soomaalinimo iyo Muslimnimo ku eegayaan bal waxa dhabtay jira iyagu waxay noo soo qoraan wanaagyada ay sameeyeen iyaga garanaya waaya dadka magacyadoodii ayaan idin u soo gudbinayaa waxaan doonayaa iyaga laftooda way kala duduwayeen way sii kala kharibayeen si kala liitaan dhowr oday weeye iyagana kulligood waa Soomaali ninka odayga u ah ee macallinka u ah ee ay isku dhaqanka yihiin isna sawirkiisa soo saareen marka ugu horeysa ayaan sawirada aan halkan ka daawadsiinaya ila daawad hortiisa cidii aad ka garatid adiga iyo dadweynuhu iyo cidii aad ka garan weyd aan ku sharax markaa wala ila daawad ninka ugu horeeya sida Cabdulqaadir Abaawul Baleera wana culus Muqdisho jooga Xasan Sheekh waa awliyo xasan soo arkay umadiisa baabaaday waliida yala taaban oo arkay in agoon iyo dad maati barnaanka la dhigayo ay odaynimo aanu oran karayn war madaxweyne dadkan u tag siyaasadba ma taas ma baa oo wanaag iyo Soomaalinimo ma jirto dadkii hal la saaro oo hal la eriyado ayuu isleeyahay si madaxweynuhu ku maqlo ku siiyo waa 75 years old xoogiisa yar baa u daran dadkiisii buu baabiinaya waayahay waxa ku xiga ninkan kale waxa la yiraahdaa magaciisa waxa la yiraahdaa qarbe kaas qarbe boos baa la yiraahdaa wuxuu joogaa garowe iska dhex fadhiya isagu waa 90 marka laga kuwa doonaya markay klibka ka duubaan ay qaadaan gurigiis bay geeyaan oo ila gurigaaga seexo kiniinka la iska seexo si fiican u seexo $30 ilaa 20 ayaa ugu shubaa ayaa la siinaya markuu arkin telefoonka ugu soo dhacay ayuu oranayaa yaan caaya hebel baa la oranaya ku sideynaya wuxuu ka bilaabayaa khamriye cab buu ahaan jiray sakhraan buu ahaa waana 90 iyo xooga afkiisa wuxuu ka qaranayaa dad badan baan soo laayay waxaan anaga ku soo jiri jirnay wax la qaanashay dumar soo kufsanay daaya ninkaas waa ninka noogu xiga maxamed muraad baa la yiraahdaa maxamed muraad mar buu noqday maayer soo noqday burca wixii aan xumaan ahayn uma soo fadhiisto mikrofoonkaas wanaag ma yaqaanoba بسم الله الرحمن الرحيم رب عو روب باينو داي إلهي روب كاس إيه الرحمة دا هاي نوسي بديو ولي ورماي ما وجدتبه dadkayga ilaahay waxaan uga bariyaa inuu sida u galo horumar baa jira aynu lacag isku darno aynu wax dhisano oo oranayo aba ka yaab wuxuu ka bilaabayaa habar Yunus mid baan u sheegay waa maalintu arko fiiri in nin habar Yunus iyo nin habar jecel ay xabad isku dhufteen ayuu soo kacaya annagu haddaan habar jecel annaga cidina ma taqaano وأي قالوا أنت ما هو ما دو شيء ولا يحبرون سوا سايسا وابتياشي وريا ابتياشي وين 24 hours أقول له ابتياشي ما يغني روي تحاول وياي ابتياشي مال أي هناك سميان مش هيكو عيل هدي قدان أنتوا صفر استقرن مايو ابتياشي ما أنت عيل بقدان خطر بي ما أنت هو أذق بس ميان الله شغب بدنا ما أرني هي هذا عرقابو ayaa dagaal ka dhacay xergaabo maalin kasta dadku istilaan waa la heshiiyay oo caadi normal markii ciidamadiisa wixii soo qaaday anagu wala dagaalamayna ninkaasna waa ka isna waa 30 something la ilaha waayahay isagana aynu ka gudubno waxaan ku geynaa ninka ku xiga suldaan hoole weey
سوق درب قصوعان هي وحكوليه ها حسن علي خير حسن علي خير سوقاتو ميكروفون iyo kameradooyin oo meel soo fursanoo oo bas soo fulo bas badilay bidaar buu leeyahay wasoo halkaana xidid ba ka muuqda ayaa ka muuqda يا نرفعك يعني ummadii wax soo dadkani madabir hore waa shiba madaadana lagu wareeraa maxaad ummadda u jeedin kartaa war xumaan meel wanaag soo jeedin karin wanaad idan isweydiisa ninkaasna waa ka ku sii daahmay isaga ninka ku xiga boqor buur madow baa la yiraahdaa number 1 waa dilaal siyaasadeed number 2 waa nin xukuumadaha ka jira Soomaaliland baad ka qaata بعد أنا أدوك اسكو يجرا وياه وانين أنا هين اسم صح واسم بوجا ودتك الوضوجين حب كسوق لا دتك أوراني ما حبوك هو رسمي وكأب كأب وياه نكاسي بغورنا وياه حاس ندبي بسم الله الرحمن الرحيم قرأت جامع قرأت علي أيا وهريا أبتجيس باش البحنتي وحكى له شيء كرا رجع اسكو كوريري وحكى له شيء كرا ربع داعي برواقان قارني دولة وين قاضي وحصلني هربر كسر قارني أقول أنه هلا مركا حنون شام على يراهو بقول عاي يحنون بالبحنتي على يراهو بايسك كبوح باش البحنتي باش برجعه ودد ولا إن عبد الله حسن كور بيستلي ترين haddana isu iman jireen godob reeb bixin jireen isa sooriyeen jireen ganacsi wad maari jireen ilaahay hadda telefoon isu dirayaan waa walaalo dadkan sidee u heshiisinaa sidee wanaagooda isu kordhinaa inama soo galayso waayo dagaalkii goolka cadde ninkani wuxuu ahaa double agent markaan dadka sida saxda u sheego dadka hawlgallada ay sameynayaan beesha isaaq weerarkay qaadayaan isaga soo sheegi jiray oo beesha dhulbaantu soo sheegi jiray weerarka ay soo qaadayaan dhulbaantu ay ku soo qaadayaan beesha isaaq buur madow baa u soo sheegi jiray oo jiray habar jeclo oo idinku soo socdaa markaas maalin qolada askaxooda la qaaday maalin qolada askaxooda la qaaday roodin bilaawi dabeeto dhibka oo dhan wuxuu ka yimi markii la arkay inuu ninkan basaas labada dhinac yahay ayaa qoladan garaad jaamac ali jaamac telefoonada ka xidheen waa ka jirteen ba maalintii ay ka xidheen ayadii bilaabantay ay baa wali socotay wala telefoonada waa heli waay boqor buur madow wuxuu galan lahaa yaasino dagaalku uu dhamaaday ba baashi dhibaatay suuqa gal maxaabad gooch cadda iyo ka sheegay dagaal dhamaade meesha shaqo kale raadi waaya halkan waxaan ku saari doonaa isaga oo leh beesha سعد موسى ويكون ساقدين سياسة نحن كما يغنى ريركا سوا ساقدين بوجي أنا قاعد حقنا أيه اللي نسوي بقبيل ما يروح كذا ما أنت هذا روح ليه بيش حبر يونس حبير توحك أوجيهين وأن هنجري أهين متشرتو وأي غنى متشرتو وسيرو مركز أمة أنت راهيد هل كابو يعني وحمام ما مغلان هذا بالقلب سنت الله يكون وين وحنا لا هذا اسم بالا هذا اسم باشا كسي ما متكل قوي شكل ديجس بور مدو مدحوناشي سومري اوردن مدحون aan xilin ma jiro jeel karan baan xilin marka wali ma jiro isimada Soomaaliland oo mid kamida ay madaxweynayaashii Soomaali Soomaaliland ay wada xireen isku raacsanyiin language-ka uu isticmaalo language-ka ciyaar suqnimada waa baad buraba baad kasoo language luqadda uu ku hadlaya waa aytan waa tisuuqiya حتى ما jirto sarbeeb iyo siyaasad iyo hadal fiican iyo mid yara adag ku dhaqan maaha waxay sideedii waa tisuuq alla abaha waxa ku sunan ba ka dhiman intaas kaliya intaas loo soo socdo intii kala gabadha marka waa nin jecel in uu xaalad abuuro hadii jeer waa nin jecel in uu dadka caayo kiciyo oo israayo oo shakhsi caayo not only ma beesha kale abtiyaashiba ku alla ku isleeyahay waxbaad keli kartaa waa caaya dawladan abaalkii uu ku lahaa Muuse Biixi isagoo musaafir dibad wareega ayuu kala hadlay Salebaan Gaal soo galbuuri iska soo galba daaybuuri wuxuu waliba ninkan uu ku ololeyn doonaa uma ololeeyna xisbiga wadani buu ololeeyay ka soo jeestay Muuse Biixi jooga jistaqtona ma waa abaalka qura ee xitaa uu yaraa dhinac ka maray iyadoo ay saa tahay
ayuu haddana caydiisii iyo ninkii reerkiisii iyo wixiisii uu muddo ku jiray waayahay qoladii uu raacay wuxuu ku raacay ugu weynaa baan kuu sheegay cirro iyo wiil buul agaasime iga dhiga uu dhalay agaasime wiilkii baa looga dhigay dowladdu waa barwaaqo dowlad fiican wey ayuu bilaabay maalmahan ayay haddana ka jareen baadi waa kaa bilaabay waa been wada iimaan la marka dowladdu dadku waa inay u siman yihiin aflagaadada iyo deelqaafka iyo hadallada lagu durayo xamar buu ka yimi qura in la xidho maahee noocana waa ina xidhaan way iska xidhaan waxa horta bal hadallada uu leeyahay labadaa ere iga qor sacad muuse waa dad saaqida oo ku saaqida siyaasadda iyo sacad muuse waa dad aad u fiican oo siyaasadda aad u yaqaan labadaba afkiisa aynu bal ka dhageysano qolada suweera war haddaanu sheegaan lahayn way ku saaqideen siyaasaddii iyo dowlad sida loo kiciyo nimankaas suweera wal way yaqaani dowladdana waxba uma doontaan qoladan garxajis golahaas ku soo sheegay hunguri yaray la ordayaan u baad arkaysaa mid kaleba berigii hore aan odhan jiray haddaad gurigooda joogtay hadday kaaga joogaanba moogta aday marti ku yihiin hungurigu inay ka qayliyaan mooye kuwani habar wash lacagteeday ku dhisaysay dowladdeeday ku dhisay dowladnimadaanba nimankaa ka maarmayn ya dowladnimada ayaa ka maarmay oo niman dowladda waxgeliya aan wax ka doonin laakiin qoladani haddii mashruucii soo dhan xaafadayda wadada maraysa hala mariya xaafadayda inna Soomaali xor jirta ilaa ha iyo maya meel hanaga wada yeersin waaya ninkaasi markaa waxaan ugu yardahay odayaasha markaan ka hadlayo waa ninka ugu khatarsan ee doonaya inuu dhinto ummadda Soomaaliyeed oo dhammaantood baabaaday waan rajo ka qabin there's no hope waaya ninka odayga baa ku xiga waxa magaciisa la yiraahdaa Caaqil Faarax Fuushane وفوشنا بيش هو سنجل مكتسين أخص الناس دتك ولي تدتك عن ستاندر كود يا كلاس كود كون كدغي أي لمدي 24 hours كو أدوين سنوا 7 أبف وحوص فردياون خير هبل وإن جميديو خير هبل واسدا خير هبل مالك صدر سيشيد هو كيامي أرين كلا أو كهذا كلام مش تسيرو مركو أنت هذا مايو أي قات كيس الصينية ولا ولا فريسو يبريس كيس وحمقراني الله ببلون عاوز كي مكان ماذا وصفر السنة واحد يسوون حرة مدة الصومالية إن ولقيت سايسوها توكو قيلو وايه أنا كجذبنا وحكوا حاجة هذا المذوبة هي ومدة الصومالية نك بابيي ودلي وهالكاردجة مانتا وشني طبعا كبيش ميه هدي اللي قالوا هدي اللي سكوا بابيي يسوي مسؤول كي هاي نكنا مسؤول كه سيا مسؤول كه شغل سبب لعتي يسولون أنتوا قاطي أو الحسن شيخو دستور كادون سميسو ومدة هبابا أنا جينا مدحينا يقولك كونفر قلبه دسد ودواتاتي وضدك برقاتك يقولون السبني أباف كتير دادو أي كون تاعي يا وأبا هذا من تصور أنت أنك هذي أحمانة أو عيدة يو أفلقادة دمر عي يقبل عي مدحينا دولان ترامب سوني سجانا سجابوا برشوا أكثر والله نبكي يا بورتا هذا لما بيبن شيء لا خيال يروي أنت ما كبحنا وياه وحن أوران لها وحن مر بوه ليانو لما يرضى لما كان هو سديت ده دود سديت انتر وقبل سيد عيا أي سفر إنما ذا أبحى على عيد الصبح حيسا فرصته دي إنما كبابينا يدوني على شو كبيران وإنما كانوا ضياشة لله وإنا إليه كل يومنا نول أبو حكس عضاء خير هي وما كان يا حنانو إلهه ما غير كي وضن نقدار ضياشة هل كسمو ذكينية مركا أمدو iska dayso adeer khariban oo xun oo umada baabiinaya inuu adeernimo ugu heliyo ama abtinimo ugu heliyo intaasba inaga naga dhinteen ninkaasaan aabo isaga dhalay ninkaasaan ka gudbay yaasina waxa jira xisbigii kulmiye waa kii murmay ee isqabsaday madaxa isla galay ninkii gudoomiyaha ahaa golaha dhexe uu yiri maxkamad qabsaday ee uu yiri wili aniga ah محمد كهني كوحدي شنو كويري وانو كاقادني دور شوي حلقة صوص على شركة صوص على كم سوق الجلبت هوش هذا نكاس
ودمات هورن وسود عشت حسب قاسي إن قدوميها مركز لقى بيديدو هو بدن بالغ سوق هذا إنك هذا وأساس شروع وراعين قدي دي كل سارسي قرتي بين نقين وحي قرتي سيان قرب كي محمد كاهن دين عيسى وهي على أساسا نكي محمود ودك وحليل هوش هذه هي قرت هذه ما ناقاضن مصبح نرجع كل كتر مصبح دين عيسى كتره لا لله مركا أرنتاس أنا قرتي ساسا لوقا هي محكمة دي هي أن قدي دي مركا وحلين كل مية دين عيكرة إنك ودك iyo kooxdiisu ambiil baan ku qaadan ma badhayso warintan inna lillahi arintaas waa arin soo kordhay warqadaasna ay dhawaan soo baxday wasaas waxaan ku tusiyaa marka waxani inay tahay laba shalay walaalaha ama saaxiibaha oo maanta isu cadow isu arka waxaan garanayaa Cabdicasiis Samaale ninka la yiraahdo oo beesha madaxweynihii hore ka tirsanaa ama kamida Musabixi oo قدومي كحجاج حسبي كل مئة أو إما كنا قدومي يسنو هاي محمد كاهن يسون قدومي كحجاج هاي أول الدوني مصبيحي كوحدي سقرب كيس إني كسران مشها مركا وير كنا وبضن وكسر عليه السمالة محمد كاهن هو قدومي إسنا ويرك لا كسر لكن مش لود دم يدقليه والسمالهن هوي إن أنت اللي صاروا نين اللي جليو ninka kale baraad fam uu noqon karo jaran Musabixi Muuse Siiro sahlan oo waa sida ay u badan tahay dad badan ay u fahmeen wasaas dabeeto dagaalkaas waa kii buuq badan dhaliyay waa kii gurigii madaxweynihii hore uu noqday xarun ama xaruntii kulmiye halkaas waa kii ninka miskiinka Maxamed Kaahin leeyahay afka gaaban leh ee ay 60 sanadood 50 sanadood saaxiibka ahaayeen Musabixi ku kala tagay ninkii aanu arkaynay burco iyadoo la leeyahay gudoomiyaha xisba kulmiye waxaan u dhiibnay Maxamed Kaahin aynu dhageysanayni haddana maanta Hargeysa laga leeyahay waa ku meel gaar ma hayn ba stress midiro ay ku saladeen gaabanayo oo maalmo buu la soo taagan yahay ma gudoomiye sax ina Soomaali ma aha sidan oo qawaaniintii iyo shuruucdii iyo waraaqihii u deganaa baal maray waxaan ku tusayaa markaa Cabdicasiis Samaale aabihii Samaale Allah yarxamo dhawaan buu dhintay taasida halkan baan ka dirnayba barnaamijkeenan Soomaali American TV wasaas ninka odaga ee dhintay Allah yarxamo odagaas wuxuu soo kaxay Cabdicasiis oo wiilkiisa wuxuu u geeyay Musabixi hagaaji wiilka wuxuu yiri waa wiilkaygi hagaaji iyo masabsi iyo meelsi ma oran wiilkaasi buu yiri ilaa wiliga buu kula shaqeynaya garabkaaga midig ka bixi maayo way Cabdicasiis maalinka leexan maayo dabeetana Cabdicasiis dagaalkii uu u galay ninka saaxiibkiisa ama inaadeerkiisa ee aabihina kala ballamay kabihu uu gashaday ayuu gashay dhawaan uu gashaa ma mid bixi hadda iska bixi hadda kabihi mid buu saaray waayahay markuu argada sida situation ku socdo wasaas illa leeyahay godka ka soo bax wasaas illa leeyahay ma noqon kartid gudoomiye wixii halgana uu lahaa la inkiray ayuu markaa hadda isagiina arkay wasaas in loo damiyo digleeyahay waxaan ku tusayaa markaa wanaag beriga la qariyay intii ugu yarayd Musabixi oo soo dhaweynaya Cabdicasiis Samaale oo madaxii mijaas ka dhunkanayaan oo Muuse uu leeyahay Cabdicasiis waa ninka qura ee cirka igeeyay si walaalnimo oon hagar lahayn oo hadalka Muuse aan dhageysano madaxweynaha hore Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ninka kulmiye yaqaanaba yaqaano waa wasiir maaliye hore waa ninka ugu tartamay murashaxnimada ee gilgilay ee cirka ay qaaday anigu hawada maray kulmiye iga dhigay war ka daaway waxay ka mid tahay siyaasadda kulmiye ee cid kale lahayn ninkii intaa galeen joog adigu u daa inuu dhawaan u daayay waana tuqna waa ku qaday waa loo ordaya nala masoo ku galgashay ya nala ninkaas la yiraahdo Cabdicasiis Samaale marka siyaasaddu waska saas waa nooca horta waa diiba badantay Cabdullah Bakar ma taqaan Xuseen Bakar ma taqaan baashi waxa weeyaan
ساسيته فرصة مصلحة دي دنتي حاجة كتير حاجة كتير ويا مركز مالنا لو قرنا يتيتر كاجي صحدها يورقها يقالو هايستا ما تهيد قدوميه أما قدومك حاجة ما تهيد لكن سكستو أنا قلت حل جود يحدد يدور شر كالفرد جودي أما الشروينه دي إن أي سمستان وشنتي سنوات بمرة شنتي سنوات سنة كوه رئيس سمستان كران كودن بي سمستان كران حسبي الأردن مركز ما تدبو مدة الصومال ده حنروشين يبل إلهي إذن كيس إن بدن بين دعينه إن إلهي قلوبته مركز السعودية وحن أورن لها دن يرده odayaasha wada da'da ee tacbaanka ee doonaya in ay dhintaan iyo god galaan dadkii oo baaba'ay inay ka tashadaan oo sida caalamka kale iyo carabta iyagu ay u kacaan dalkooda hooyo oo ay noqdaan aqoon-yahanada gudoomiyaasha xisbiyada gudoomiyaasha ururada horumarka oo dhan in ay ka noqdaan gobolkooda iyo dalkooda iyo degaankooda oo aan isku hadlayn oday koofiyad bacla oo ay tamaya 24 hours هنا كان انغرين برنامج كلمه ما انت سoo koobiya yaasiin aad ba maasantay way cali aad iyo aad ma mar labaad iyo mar saddexaad ba maasantay waan ugu yaasiin ducada waxaan kaga dignaa sida iyo nabad geliyo